waddanka Talyaaniga oo waxyeelay Coronovirus Dhakhatir ku qasbay inay bukaanada qaar daweeyaan qaarna iska daayeen iyagoo dhimanaya. Dhakhaatiir safka hore uga jiray dagaalka ka dhanka ah caabuqa corona ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay inay kala dooranayaan bukaanada ay noloshooda badbaadinayaan iyo kuwa aysan badbaadinaynin xilli ay sii badanayaan dadka uu ku dhacayo cudurka. maalin walba ay boqolaal qof ku soo biirayaan Talyaaniga ayaa xaalad adag ku wajahaya sidii bukaanada loogu heli lahaa sariiro isbitaal oo ku filan. xaaladan ayaana lagu tilmaamay mid lagu arko xilliyada ay socdaan dagaalada lagu hoobto oo kaliya. haddii qof ay da'diisu u dhaxayso 80 ilaa 95 neeftu ku dhagan tahay uma badna inaad u dhaqaaqdo sidii aad u daaweyn lahayd, ayuu yidhi Dr. Christian oo madax ka ah qaybta bukaanada halista oo lagu gudbiyo isbitaalada magaalada Bergamo ee ka tirsan gobolka waqooyiga Talyaaniga. mar uu la hadlayay wargeyska Corriere della Sera, ereyada waa kuwa aad u xun laakiin waxa wax laga qoomeeyaa inay run yihiin. ma filayno inay dhacaan waxa aad ugu yeertaan mucjiso, laakiin arrintani ma waxay khusaysaa caabuqa corona ee ku faafay Talyaaniga, taasoo micnaheedu tahay inay go'aanada la xiriira nolosha iyo geerida ay lagama maarmaan yihiin. caabuqa coronavirus wuxuu si gaar ah dilaa uga noqday waddanka Talyaaniga. kun dhimasho ayaa la diiwaangeliyay halka tirada dadka uu ku dhacay ay marayaan 24,747. waddankan ayaa ah kan labaad ee ay ku nool yihiin waayeelada ugu badan adduunka marka laga soo tago kan koowaad oo ah Japan, sida laga soo xigtay qaramada midoobay. taasi micnaheedu waa in dadka da'da ah ay halis ugu jiraan inay aad u xanuunsadaan marka uu ku dhaco cudurkan. Talyaanigu waa waddankii ugu horeeyay ee ka tirsan Yurub oo uu saameeyo caabuqa corona, ayuu yidhi Dr. Christian. waxaana sidoo kale rajaynaynaa in Talyaanigu uu noqdo waddanka ugu horeeya ee ka baxa xaaladan halista ee uu ku jiro coronavirus.